بسم الله الحمد لله هذا ودان لا يسقناتay magacaygu waa Garad Cabdullaahi wasiirka farmaajo wasiirka ku magacaaba wasiirka waxbarashada waxaan dhegeysanaya maalin dhaweyd hadal uu ka sheegay dood wadaagii TV Universal ninkaasu waa nin gulwadaynaya oo farmaajo u gulwadaynaya iyo jufada uu farmaajo ka dhashay u gulwadaynaya ayuu u muuqday mana ahayn nin mas-uul ah Soomaaliyeed wasiir Soomaaliyeed kama aysan muuqan danqasho oo u danqanayo ardada faraha badan leh ee ugu badan yahay gobolka Banaadir ee ku dhacday imtixaanadii markii loo isticmaalay si aan habboonayn oo isugu darantay xayiraadii koronaha iyo waxbarasho xumada ahaad iyo ardada imtixaanka markay galaysay inaan wixii ay rabeen aan loo maaragtay loo meel macnaha ku habboon ama maaragtay si ay qofku markuu su'aal u baahdo ama qalin u baahdo ama wax ka halaabaan waxaa loo baahan yahay macallimiin taagan oo jawaab cunuga kaligiis yani si sax ayuu isugu sheegay jawaabtii laakiin information ahaan tusaale ahaan saasay ka hadle halkaas yiraahda ama maaragtay xoogaa dee waxaa jira waxyaabo u baahan in ardaygu wax ku fahmo ma ahan ardaygu qoray caaradiis in uu imtixaanka ku galo maaha ardaygu qoray caaradiis inuu imtixaan ku galo maahan gobolka Banaadir waxay ku galeen ardaydu qor caaradiis ayay imtixaan ku galeen iyadoo qoryo la hor taagan yahay la cabsi gelinayo la dhibaataynayo waarid iyo macallin iyo mid kale aan loo ogolayn inay si sax ay wax u fahmaan haddaba waxaan ka codsanayaa ninkan goodax reer hiiraan uu ka soo jeedo inaysan mar dambe aysan xildhibaannimada aysan ku soo celin oo ay say ugaas u leeyihiin waxgarad u leeyihiin dadka reer hiiraan ninkaas dhibaatada uu ummadda Soomaaliyeed u geystay inay ku iqaabaan oo ay xildhibaannimada ay ka kansalaan oo ay geed dheer iyo geed gaab u fulaan si ay meesha uga saari lahaayeen sharafkii bulshadaas reer hiiraan uu dilay sharafkii gobolka Banaadir uu dilay sharaftii wuxuu dilay Soomaalinimo uu dilay wuxuu noqday guulwade iyo qof aad u liita aadaan salaamay magacaygu waa Garad Cabdullaahi nabaday